walaalayaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh mahadda ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib waxaynu aada iyo aada u bogaadinaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala u baryanaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro dadaalka nafhurnimada leh ee ciidanka dabdamisku ay wadaan ciidanka dabdamisku hawsha ay wadaan iyo dadaalka ay wadaan waxa fadligiisa iyo qiimihiisa waxayna tusinaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiistiisa uu kaga warramay badbaadinta nafaha uu kaga warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii in dhibka laga kor qaado wuxuu nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اdunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi اlqiyaama qofka qof mu'mina ka fayda dhibaato ka mid a dhibaatooyinka adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana waxa uu ka faydaa dhibaato ka mid a dhibaatooyinka aakhiro dhibaatooyinkii aakhiro ilahay subxana wa taala ka faydaya qofkii isagoo markaa dhibaataysan oo dab marka waxa weeyaan ku dhex jira marka lasoo badbaadiyo dee dhib baa laga fayday qofkii oo marka waxa weeyaan biyo ay qaadeen ama marka waxa weeyaan daad uu qarqiyey marka lasoo badbaadiyo dhib baa marka waxa weeyaan laga fayday mar kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay laba indhood buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam naartu ma taabato waa il ilaahay dartii u oyday iyo il bariday oo soo jeeday iyada oo taxrusu fii sabiili illah ilaahay dartii yacni waxa weeyaan gaadh ugu jirta markaa gaadh bay ku jiraan ciidanka dabdamisku sidii ay u badbaadin lahaayeen hantida dadka iyo nafahooda sidii marka waxaan u badbaadin lahaayeen marka ciidanka dabdamisku hawsha ay wadaan waa hawsha ajarka iyo wanaagga leh marka waxaynu ku dhiiri gelinaynaa dadaalka ay wadaan inay sii labalaabaan oo ay sii kordhiyaan oo ay sii dadaalaan ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayay marka waxa weyn u taallaa haddii aynu nahay shacabka iyo bulshada reer somalilandna waynu u ognahay dadaalka iyo wanaagga ay wadaan waynu u ognahay bulshadana waxaynu kula talinaynaa oo aynu ku wajahaynaa kow inaynu ilaalino lambarkooda oo aynaan khaldin marka ay hawli timaado waayo marka ay mushkilad dhacdo uu dabdhaco ama qof marka waxa weeyaan bulaacad la dunta ama qof marka waxa weeyaan uu daad qaado waxaa laga yaabaa khalkhalka inagu yimaada inuu keeno inaynu khaladno lambarkooda aynu khaladno marka inaynu lambarkooda saxno lambarkooduna waa 290 ayuu marka waxa weeyaan lambarkoodu yahay marka lambarkooda inaan khaldin waxyaabaha dhibka keenaya inaynu ka gaashaamano waxyaabaha dhibka keenaya waxaa ka mid ah oo ugu waaweyn ciyaalkii yaryaraa inaynu ku xidhno guryihii aynu ku xidhno oo haddii xitaa ilaahay subxaana wa tacaala maba keenay dhib uu dhaco ciyaalkii markaa waxa weeyaan gurigii markay ku xidhan yihiin dee inta laga jabinayo iyo inta loo gurmanayo ay hawlba noqonayso markaa guriga hadduuna ku xidhnayn iyagabay u suurtogelaysaa gurigii inay markaa waxay ka baxaan markaa ciyaalka guryaha inaynaan ku xidhin haddaynu horta ciyaalka gurigii ka tegayno aynu dad mas-uule kaga tagno fariinta saddexaad aynu diraynaa waxa weeyaan waxyaabaha dhibaatooyinka keena waxaa ka mid a bulaacadihii waxayna jeclaysiye garan mayna wadooyinkii baynu la soo doonanaynaa qaar fara badan oo ka midiina way jilicsan yihiin horta bulaacadda aynu waddada ka dayno oo jidka qofka bulaacadda keenaya waxa uu ka dhigan yahay dee qof dhibkii waddada keenay shareecadeennuna waxayna amartay dhibka waddada in laga fogeeyo waddada in dhibka la keeno marka waxa weeyaan aada iyo aad bay uga digtay marka inagu cagsigaynu ku shaqaynaynaa maanta ama kasoo horjeedka oo dhibkii baa laga yaabaa inaynu waddadii keenno halkii ay ahayd dhibka inaynu waddada ka leexino hadday markaa dhacdana in bulaacadihii la adkeeyo oo wax aan dadku dee waxba ku noqonahayn lagu sameeyo oo aada loo adkeeyo la shubo garaa'idkooda iyo markaa shubkooda aada iyo aad marka waxa loo hubsado marka ciidanka dabdamisku ay gurmadka ku jiraan caqabaad fara badan bay la kulmaana caqabaadka inaynu sidii aynu uga hor marka waxa weeyaan qaadi lahayn inaynu ku dadaalo ciidankii oo waddadii aan loo furahayn ciidankii oo la shiidayo oo isagoo gurmadaba marka waxa weeyaan ciyaalkii iyo dumarkii ay shiidayaan waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada u khalada
mar hadday ciidankaasi gurmad yihiin in aynu waddada u bannayno garab istaagno oo wax allaala wixii markaa caqabad ku noqonayaan aynu ka ilaalino. inaad waddadii xidho ama gaadiidkaagii hor dhigto caqabad bay ku noqonaysaa, inaad iyagii shiiday caqabad bay markaa waxbay ku noqonaysaa. marka inaynu ciidankaasi garab istaag buuxa aynu u muujino. dadkeenu dhibku intuu yar yahay way sahashadaan, dhibku markuu weynaado ayay markaa soo gudbiyaan. marka intuu dhibku yar yahay inaynu fariinta hore u soo gudbino oo aynu ciidankii la soo wadaagno, waayo dee dhibkii oo weynaaday ama markaa culayskii oo weynaaday soo gudbinta aynu dhibka soo gudbinayna ama fariinta aynu soo gudbinayna waxaa laga yaabaa waxa lagu soo gaadhaaba markaa inay iska yaraato. markaasi uu ciidanku fursad u helo dhibaatadii iyo dabkii iyo wixii dhici lahaana loo xakameeyo inta ay markaa dhibku yar yahay in aynu markaa waxa weeyaan la soo wadaagno oo aynu fariinta markaaba soo gaadhsiino. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u baryanaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro dadaalka ay wadaan ee nafhoornimada leh. innagana waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryanaa inuu markaa waxa inaga dhigo dadka markaa waxa weeyaan ciidankooda garab istaaga ee waxa weeyaan shaqada ay hayaan garab ku siiya ayaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryanaa.